bulshada degmada Baki ee gobolka Awdal ayaa harimo sharafeed ay ku maamuusayaan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wufuud ay hogaaminayaan ku marti qaaday beer weyn oo duleedka degmada ku taala waxaana martiqaadkan ugu tala galeen inay ku maamuusaan murashaxiintan jagada madaxweyne iyo ku-xigeen ku metelaya xisbiga kulmiye doorashada madaxtooyada ee dabayaaqada sanadkan dalka ka dhacaysa mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa bulshada ku dhaqan deegaanka Baki ku bogaadiyay sida milgaha iyo maamuuska leh ee ay ku qaabileen wafdigan ka kooban xukuumadda talada haysa iyo xisbigeeda kulmiye ee socdaalka shaqo ku jooga gobolka Awdal goobtan barwaaqada ee bustaanada badan ee biyaha badan ee dadkeeduna tabcatada iyo tacabka badan galiyeen ilaahay maanta soo keenay ee sida wacan noogu soo riyeeyeen gobonimada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa degmadan Baki saalay noo sheegay intaas oo khayraad ay leedahay horumarin bay u baahan tahay horumarintuna waxay ku beenaysaa marka hore nabad iyo dadaal iyo aqoon iyo ismaqal waana intay Soomaaliland u baahan tahay talaabooyin waa la qaaday wax waa la qabtay maalin walba qabiyo way jiraysaa inta dadka mustaqbalka dadaal badan bay nugu gali sidii degmada khayraadkeeda looga faa'iideysan lahaa ee Soomaaliland oo uga faa'iideysan lahayd Soomaaliland oo gaaraysa haday biyo tahay haday khudaar tahay haday macdan tahay haday xoolo tahay nina korkiisa biyo kama dhawro wixii horumara ee Baki loo qabanayo iyo degmooyinka kale Soomaaliland guud ahaanba waxba ka reebnaa dalkeena inagoo dhamaanteen gacmo haysanaa maanta annaga halkan waxaa noo odayeyntii socotay madaxweyne ku-xigeenka waad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo sooriyada iyo dadaalka dad iyo maartay rag iyo dumar iyo caruur iyo roolaba aad dadaalaysaan inay soo dhaweysaan aad baan ka mahadnaqaynaa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid iyo Axmed Jaamac Faarax telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Baki ee gobolka Awdal.